السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو ناكسن داودي الميل كستوات جوجتان كسو دواده برامج aan maanta idinku tala galnay aniga iyo abwaan dayib qoor oo ah abwaan reer burca ah intiina badan aad wada garanaysaan dayib maanta wuxuu inala wadaagi doonaa qiso aad u xanuun badan isla markaasna aan hubo aniga iyo in badan oo idin kamid ah inaad qisadaasi la murugoon doontaan barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Yaasiin Dhagacade waxaan idin kala baxaya idinka iyo abwaan dayib qoor si uu nagu bilaabo sheekadaasi bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad u mahadsan yahay suxufi Yaasiin Dhagacade niyo kulay qisadan waxay ahayd qiso ka dhacday magaalada Burco de kulay af Soomaali ku sheegay in suugaana ayaa idinku cabiri doona maanta yar baan idin wada magaceeda waxa la yiraahdaa nafsi qisadani kulay Burco oo kama dhicin tan oo kalena ma ahay meel kasta oo Soomaali joogto waa ka dhacda hablaha Soomaalida badana waa ku dhacda marka adigu waxa weeyaan inan Soomaaliyeed nin bay iskuursadeen ninka adigu inantu waa heer Burco nin bay iskuursadeen ninka markay iskuursanayeen macnaheedu wixii ka baxay marka kharashaadka aqalka inta badan ayada bixistay haddii ay ka dhigayo qofku markuu dumarku de uur yeesho oo xanuunsado de wuxuu baahan yahay taban taaba iyo caawin iyo hawlahaas ma aysan arag markii umuleysay inankeedu ugu dambeeyay hawlo badan baa kala kulmay ma doonay inaan Soomaali ku sheego laakiin suugaan baan ku sheegi doonaa saana waan ku bilaabaya marka anigu waxaan iska dhagayaa macnihii waxaan u hadlayaa oo kala sidii inantii waxay dareemayso oo kale baan anigu oranaya mar haddii idinku inantii iska de wixii ay sheegtay oo suugaan baan oranaya nafsi homa dhixi doontid mana dhagaad kaan doontid dhacdadii soo gaadhay dhaxalkeeda waad keeni waxaana dhabeel quruxsan waxaana mid lagu dhaato dhacdhac iyo xumaanta ay gurigeeda aan dhaafin ogow oo dib iyo dheefba dhismihii arooskeena dhinacayga waan qaad waxaan ahay mid dhaandhaan xun nacaas dhiman raga mooday anigoo dhibaataysan marka diga dhaqaaqaysa adigoon ku dhiibin maxaad uga dhawaanaysaa haddaan khayr joojo markan sheegay isagoo finisho tabcaan uu iskaga tagay markan dhalay wiilkaaga ee waarka lay dhigay dhakhtarkii iqalalaana ka dhursugay weedhaada dhoohanow sidaad yeeshay dhimashaan margaan haddaan halkaan idin yar dul istaago ayadoo inantii foolanayso inankeedu ugu dambeeyay foolanaysa ayaa lagu war inantii aad saxiixdii aad qabtay kaalay isla intii ay dafooshu ku jirtay la sugayay dadkii joogay dumarkii ummadii joogtay waxa aragtay hambal waa meher waa ninkii waa mehersaday marka hore baad garanaysaa gabadh la guursaday waxa dareento balse ka waran gabadhii oo hiil iyo baahnayd inta la garab istaago ilmahan oo la caawiyo la joogo ninku la umulo ninkii gabadh kala guursaday una imanna ka war isaga halkii saxiix laga sugayay markan dhalay wiilkaaga ee waarka la dhigay dhakhtarkii qalalaana ka dhursagay weedhaada dhoohanow sidaad yeeshay dhimashaan marigaan dhaxaan ku koolkoolshi dhaxaan adoo camala dhididkeega kugu quuji dhaxaad abaalaawe igu tiri dhaaf maanta balse aan dhabtiidiida ku dhaqay ubadkaaga adiguna sidii dhoorre dagaal u dhaxmaray maanta dheeldheel caayis uma dhiban jabkaagii waxaan haatan dhowraaba dheeldheelka noloshaadu dhalanteedka noloshaadu halka uu ku dhigi doono maca salaam intaasaan ku soo koobaya waxa aan kala doonaan ku daro hadda inantii qof imaka wax allaale iyo wax u qabtaa ninka ma jirto magaalada waxa ka joogta halka sida boqorkay u nooshahay shaqada qabsata waa shaqo heer saraa caruurteeda waa korsataa guriyaha ugu weyn baa ku jirta marka waxa leeyahay Soomaalida ragga waliba raggow inantaasina way heshay nafsi bixi waa heshay asagana waa eegaysa bal halku dhaqan doono marka ujeedkan u soo duubay aan siribal bulshada u gaarsiin waxaan ogahay inaanay kaligoodun jirin laakiin hablo badan oo arrinkan oo kale ku dhacay jiro wala mid ayagu aan laakiin qof la wadaagay